A recent blow-up of a nurse officer injecting vaccine to BTS Jin at his military. Ma la socota shirqoolka lagu sameeyo mid ka mid ah xidigaha kooxda fanaaniinta ee BTS ninka la yiraahdo Jin kaasoo gabi ahaanba loogu talagalay in la dilo iyo taageerayaasha kooxdaasi BTS Army oo si weyn uga godooday isla arrinkaasi waa tuma gabadha ku mudayr badaha sunta taasoo qalqal ku keentay jirkiisa misana laga dareemay isla durbadiiba madaba inay xiriir hoose leeyihiin gabadhan mid ka mid ah madaxda dhaqaatiirta qaybta shanaad ee xariyaha militariga ninka loo yaqaano Mr. D maxay ahayd fariintii xisaab badnayd ee J-Hope u soo diray Army Weekend mase la socota Blackpink Jennie inay raali gelisay fanaanin Americana oo ka mid yahay Weekend maxay tahay sababto humbly apologized to them after the shoot. Her co-stars were understanding and supportive of her. intaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena maanta balse ka hor inta aynaan u dhaxgalin sheekada oo dhan waxaan rabaa inaan idinka mahadceliyo sida quruxda badan aad la falgashaan markasta muuqaaladeena idinkoo like garaynaya subscribe ayaa ku soo beeraya channelka iyo YouTube-keena Baldaab TV ana waxaan idin leeyahay waan idin ogahay midaasi mahadsanidin saaxiibayaal BTS with the mess. BTS with the mess. BTS with the mess. Hey. taageerayaasha kooxda Koreaanka ee BTS Army ayaa ka muujiyay walwal iyo walaac badan kadib markii ay ogaadeen inay halis ku jirto nafsada fanaankooda lagu magacaabo Jin kaasoo in muddo ka tirsanaa adeega ciidamada militariga ee dalkaasi South Korea fanaankan ayaa sida la sheegay ku sugnaa qaybta shanaad ee xiriyaha militariga waxaana si amar la'aan ugu soo gashay gabadh kalkaalisaha iyadoo la tilmaamay inay ku sameynayso talaal ama waxa loo yaqaano vaccine daqiiqado yar kadibna waxaa la arkay sida ay xaaladiisu u xun tahay iyo qandhada saayidka ee uu dareemayo Jin kadib markii ay ku dhufatay gabadhan hal irbad oo ay ku tilmaamtay inay tahay talaal dhidid badan qandho saayida iyo kuleel ayaa laga dareemay markiiba waxaana la baadhay dhiiggiisa kadibna waxaa soo baxday inay ku dhufatay 2 irbadood oo saayida taasoo ka baxsan caadiga misana khalad gabadha neerska ayaan wax amar ka haysan madaxdeeda ka sarreysa si la mid ahna amar la'aan ku timi halkan amaba ku muday fanaanka iyadoo gabi ahaanba aan cidi ogeyn heer xataa ay siisay gabi ahaanba qaar ka badan irbadihii saxda ahaa ee loogu talagalay midaas oo muuqata dil iyo gabi ahaanba dhaadhicin nafsiyana. Today we need to talk about Jin's recent trips to the ER and why he is prone to getting sick. We need to talk about kalkaalisadan militariga ayaa markii la baadhay la ogaaday inay xiriir qarsoodi la leedahay dhakhtar ka shaqeeya qaybtan shanaad ee militariga ee uu ku sugan yahay Jin oo lagu magacaabo Mr. D sidoo kalena uu ka dambeeyay in halka gabi ahaanba amar la'aan ay gasho waxaa la isweydiinayaa ujeedada ka dambaysa inay sidan samayso ama sunayso fanaanka oo ku muddo irbado saayida ama ka badan intii macquulka ahayd waliba amar la'aan ugu gasho qaybtiisa shanaad ee militariga dambigan ayay ku mutaysan kartaa gabadhan hal ama 2 sano oo xadhiga iyo waliba ganax lacageed maadaama ay samaysay dambi culus kaasoo sababi kara si fudud in loo dhinto mar kale taageerayaasha qaaska ee kooxda BTS Army ayaa ku dooday inuu jiro qorshe ay wataan gabadhan iyo ninka lagu magacaabo Mr. D kaasoo raba inay gabi ahaanba dilaan fanaankooda lagu magacaabo Jin balse uu ka fashilmay qorshahaasi haddana mid kale ay baadhayaan waxaana ka mid ah taageerayaasha sida xun uga godooday misana uga cadhooday habdhaqankaasi gabadha taageerahan oo yidhi hadal gabi ahaanba sidan u dhigan This is actually crazy. xaqiiqadii midani waa waali siday ku ogaatay xataa inuu u baahan yahay talaal iyadoo aan loo sheegin madaxda militarigu runtii waxay u baahan yihiin inay ka warqabaan askartooda si aanay u dhicin halistan oo kale mar kale bal ka waran haddii ay ku dhici lahayd Jin wax intaasi ka weyni Even in the military, it's scary to even wonder what would have happened if the nurse had wanted to hurt him. Comments from dhanka kale J-Hope ayaa la wadaagay fariin farxad badan taageerayaasha kooxdaasi BTS Army
kaasoo kaga hadlayo ama kaga warbixinayo adeegkiisa militariga iyo halka ay wax u marayaan wuxuuna soo raaciyay sawirkiisan uu ku labisan yahay tuutaha militariga oo qoraal uu kula hadlayo taageerayaasha kooxdaasi BTS Army hadal gabi ahaanba u dhigan sidan Army waxaa si fiican ugu soo dhamaaday qaybihii hordhacay adeegga militariga wax kastana waxay sahlay taageeradiina iyo dhiirigelintiina jacaylku hadhiyay waxaan ku rajaynahay qaybaha ay hadheen inaan si fudud gabi ahaanba u dhamaysto markasta waan idin ogahay garab istaagiina waan idin la socdaa faaniskeenna quruxda badanow J-Hope ayaa xubintii labaad ee si toosa uga qayb qaadatay adeegga militariga dalkaasi South Korea oo ka tirsan kooxdaasi BTS si la midna waxaa la rajaynayaa xubnaha xiga inay gabi ahaanba sida ugu dhaqsaha badan uga howlgalaan adeeggaasi qasabka ah kaasoo gabi ahaanba qaadan kara ilaa 2 sano ama sanad iyo 8 bilood. Message J-Hope left for fans a day before he started mandatory service in the South Korean military. si la mid ah fanaanada iyo xiddigada kooxda gabdhaha K-popka Blackpink Jennie oo ku sugnayd muddooyinkii u dambeeyay dalkaasi France gaar ahaan caasimadiisa Paris ayaa ka soo muuqatay xafladda gaarka ah ee shirkadda aflaanta loo yaqaano Cannes. Jennie ayaa ka mid ahayd fanaaniintii martiqaadka qaaska ka helay shirkaddan waxaana ka soo muuqatay halka iyadoo ku labisan labis cadaan ah oo soo jiidasho badan halka isla daqiiqada yar kadibna ay sawir qaadayaasha ku hortimi labis kale oo madow ah misana gabi ahaanba qaraar ah oo soo jiitay taageerayaashii ku sugnaa goobta si la mid ah dharkaasi waxaa marka la iska lahayd shirkaddeeda caanka ee ay la shaqayso ee loo yaqaano Janal intaasi waxay iska ahayd wax caadi ah balse waxaa cajiib ahayd in fanaaniinta la kala yidhaahdo Lily iyo Weeknd oo ka soo horreeyay misana u soo dhaqaaqay dhanka fotograafyada si sawirro wada jira looga qaado markii ay u soo dhawaayeen lagu dhawaaqay magaca Jennie taasoo la macnaa noo soo hormariyay Jennie oo idinku iska jooga amaba muujinaysa inay aad u ramaan Blackpink Jennie balse aanay waxay saa u qabin fanaaniinteen la kidhaahdo Lily iyo Weeknd oo fiirso mar qura ayuunbuu isqabsaday magaca Jennie taasoo ku kaliftay inay hor timaado kaamirada iyadoo qajilaysa misana qofuu gacanta soo qabto iyadoo markaasi aad u dhoola cadaynaysa halka Weeknd iyo gabadhii la socotayna ay iska baxeen iyagoo aan faraxsanayn amaba ay ka muuqato cadho maadaama lagu jeesjeesay lagana soo hormariyay Jennie oo booska looga qaaday. Any look and truly stolen the show. However, although Jennie made a huge impact, Jennie wax qalada kuma ay lahayn fanaaniinta xanaaqay misana baxay maxay yeelay taasi waxay ahayd dareenka taageerayaasha goobta ku sugan iyo fotograafada ku dhawaaqay magaca Jennie balse haddana saasi ay tahay waxay soo garaysay baraheeda bulshada inay xaq u lahayn in sawirada laga hor qaado fanaaniintaasi balse gabi ahaanba aanay mudnayn sidaasi loola dhaqmo waxaanay ugu horreyn u muujisay ixtiraam iyadoo ka raali gelisay habdhaqanka faaniska iyo fotograafada ee ka dhacay goobta taasoo mar kale kor u sii qaaday sumcadda iyo gabi ahaanba karaamada ay leedahay fanaanadaasi lagu magacaabo Blackpink Jennie. haddaba daawade aan ku su'aale sida ayaad u aragtaa sheekadan gabadhani neersta taasoo daawasayda ku daldashay amaba ku mudday fanaankaasi lagu magacaabo BTS Jin macquul ma tahay inay shirqool hoose maleegayaan iyada iyo ninkani la sheegayo ee la leeyahay waxaa la yidhaahdaa Mr. D misana ka mid ah madaxda qaybta shanaad ee militariga ee xeryaha uu joogo Jennie miyay ku saxnayd inay raali geliso misana isu dhuldhigto Weeknd iyo Lily xilligii xafladda shirkadda ee fanaaniintaasi ka soo qayb galeen hoos ugu dhaaf fikirkaaga iyo sidaad u aragtay sheekadeena maanta haylaawin inaad la garayso muuqaalka subscribe dhaada channelkood ku soo biirto YouTube-keena Baldaab TV ana waxaan ku leeyahay